mas-uuliyiintii ka socotay dhinacyada Soomaaliya iyo Somaliland ee shirka wada hadalku uga socday wadanka Djibouti ayaa waxa ay ku kala laabteen magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa iyagoo wali shirkaasi aanay ka soo bixin natiijadii cuslayd laga rajaynayay in shirkaasi ay ka soo baxdo. shirka ayaa waxa uu ahaa mid maqaamkiisu aad u sareeyo marka la eego mas-uuliyiinta labada dhinac ka kala socda iyo waliba dawladaha dhexdhexaadinaya oo ay kamid ahayd dawladda Itoobiya iyo dalka Mareykanka isla markaana gogasha shirka ay dhigtay dawladda Djibouti. waxyaabaha aadka ay Somaliland iyo Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay oo wada hadallo u socdeen ay isku mari laayihiin waxa kamid ah arinta masiiriga oo loo arko in laga warwareegayo oo ah kala go'a iyo midnimada. haddaba ma jira meel dhex oo labada dhinac ay isugu iman karaan oo aan ahayn kala go'a iyo midnimada. waxaan arintaasi ka waraystay boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow oo kamid ah madax dhaqameedka ugu magaca weyn Soomaalida gaar ahaan Somaliland muddooyinkii ugu dambeeyay ee usha ku hayay shirka ka socda wadanka Djibouti. boqorka ayaan waxaan weydiiyay aragtidiisa sida uu arko waxyaabaha shirka ka soo baxay qaabka labada dhinac ay shirkaasi ugu kala tageen inkastoo guddiyo farsamo oo wada hadalka sii wadi doonta la magacaabay. horta shirkani markiisa hore wuxuu ahaa shir ahmiyad gaar ah inaga inoo leh waxaan ku faraxsanahay inaan ahaa dadkii mar walba madaxweynaha iyo xukuumadda ku dhiirigelinayay inay dhabtaan wada hadallada inay ku dhiiradaan in wax wanaagsan inoo ka soo bixi karaan haddii la cilmiyeeyo. taa marka hore madaxweynahana waa ku bogaadiyey maanti dhaweyd iminkana waa ku bogaadinayaa inuu tago meesha. gogashani runtii waxay ahayd gobol aad iyo aad u muhiima waxaana ay kaga duwaneyd gogolihii hore. gogashatan waxay kaga duwaneyd odayeyntii Ismaaciil Cumar Geelle iyo dhexdhexaadintii isagii dawladdiisa iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda oo runtii aan oran karo waa nin aad iyo aad u khibrad badan leh. taasi waxay ahayd oo dhaqanka iyo curfiga Soomaalida doc walba u garanayay diin ahaan iyo dhaqan ahaanba. taasna waan ku hambalyeeynaya inuu waxayna noqotay meeshii ugu habbooneed bayna noqotay. marka arrinkan marka hore waxa weeyaan arrimaha aan aad iyo aad u oran karo uu kaga duwanaa iyo international community-ga iyo EU-da iyo AU-da iyo Mareykanka iyo dawladaha IGAD oo iyaga laftoodu serious ay ka ahayd inaanay sidii hore u dhegaysanay ay arrinka gacanta ku hayaan oo midho ka soo saaraan. labada arrin waxa weeyaan waxay mixwarka ugu weyn ee shirka muhiimadiisa ay ahayd horta waxyaabaha ka soo baxay boqor sidaad u aragtaa? waxaan ugu arkaa shirkani qaabkay loo wajahay ama Soomaalidii labada dhinac ka kala timid Somaliland iyo Soomaaliyaba iyo adeegii ay iskaga hor yimaadeen waxaan u arkaa anigu inuu darafyada Soomaalida shirku ka fashilmay. laakiin waxa lagu badbaadiyay khibradii iyo waayo aragnimadii iyo xirfadii heerka sare ahayd ee dawladda Djibouti iyo qoladii adduunweynaha ka joogtay ay ku badbaadiyeen arrinka. marka ma oran karo dee rajo waynu ka qabnaa inuu gadaal ka hagaago oo mudduu leeyahay sayfuu leeyahay guddiyuu leeyahay. laakiin haddii aan wax laga bedelin qaabka ay labada daraf u address gareeyeen ama ay uga shaqaynayeen shirkaasi faashil ayuu ku dhammaanaya. iminkana ma oran karo anigu wax lagu farxo ama wax ka soo baxay aan ahayn in la sii joogteeyo shirkii oo aan weli la xidhin shirkii waatay boqor aan ka dhex gale fashilka shirka iyaa lagu eedeyn karaa labada dhinac oo dhinacyabaad is leedahay dee eedda badideedu way raacaysaa? horta anigu asalkaygaba maanta diyaar u leeyahay inaan cid eedeeyo. madaxweynahana maadaama uu gole fagaare aynu ajnabi kula kulmayno oo dawladihii adduunka oo dhami joogaan uu joogo oo dawladda Soomaaliya oo waxina ka dhexeeyeen oo ay dood culusina dhex marayso joogto anigu raggii sii hambaliyayaan ahaayo waxa weeyaan madaxweynaha inuu kalsooni shacabka ka qabo oo dadkiisa shacabka ka qabo arrinkaa waan soo jeedinayay. laakiin qaabka labada qolo ee Somaliland iyo qolada Soomaaliya ka timiba qolada Soomaaliya ka timi madaxweynaha Farmaajo oo laga rajaynayay inuu keeno
wax iyo prime ministerkii khayrro meesha marayay iyo ra-iisul baarlamankii wax culus la socday oo la aaminsanaa inay wax culus kulaha keeni doonaan oo shacbiga somaliland intaanay marka laga tago qolada wadatashiga kula jireen iyo wadahadalka shacbiga somaliland wax weyn inay ka bedesho la rabay inay keenaan khudbadii madaxweynaha labada mirir ilaa iyo 5 mirir intii u dhaxaysay aan wax faahfaahin lahayn ee daboolayda afxidnayd inagu wax weeye wixii hoose ee lagu wada hadlayay wax inoo soo baxay maaha laakiin qoladaasi waxa la filayay maadaama somaliland 60kii ay la tagtay wax la yaabo tadxiya ama haddii la leeyahay ay nafteedii oo dhan midnimada ku doontay oo aynay wax alla wax uga soo baxay oo naftiisa maxsuulaan khasaare ahayn aanay jirin dabada dhaca waaqifkii ka soo gaaray iyo dhibaatadii ka soo gaadhay ay shacbiga somaliland goosashada iyo halkaa keentay ay tahay waa tahay duwaydkii degdegii hore marka waxa la rabay farmaajo iyo dowladdiisu inay la timaado wax somaliland daweyn kara wax ka qaban kara wax soo dhawaan kara waa tahay boqor cismaan talabaad idaada aan ku dhamaystiray la su'aal baad weydiistaan si fiican uga jawaabay talabaad madaxweynuhu si fiican buu u garnaqsaday weli waxaan odhan karaa waa markii koowaad golayaal badan waynu tagnay laakiin waa markii koowaad ee dood garnaqsiya somaliland ay la tagtay madaxweynuhu si fiican u jeediyey loona dhegaystay laakiin waxay ahayd doodaasi taariikh bay ka wada hadlaysay iyo dhacdo hore maadigii bay ahayd waxa la filayay inuu keeno maadaama dadkii deeqbixiyaashu ay u doonayeen meesha xal ka rabeen wax xal somaliland inay madaxweynaha xuluuli ka soo baxdo iyo waqtigiisa maadaama aanay koonfur waxba aanay ka soo bixin iyagu inay dhigaan wax haddii aan laba leeyahay caalamkuna inuu ku heliyo garteena ina hagaajin kara boqor waan ku fahmay boqor si fiican baad ugu jawaabtay labada qoloba waxaan odhan karaa qolana guul lama ay noqon meesha fashil baa ka soo baxay siyaasiya baan odhan karaa waa tahay boqor labada arrinka masiiriga ah ee la sheegayo in laga warwareegayo ee weli aan lagu dhicin waa in la kala go'o iyo in la midoobo labadaas arrintaasoo u muuqata arrin culus oo muddo qaadan karta adigu aragtidaada ma jira meel dhexe oo la isugu iman karo oo labada midnimada iyo gooniisutaaga midna aan ahayn oo Soomaalidu ay ku heshiin karto Somaliland iyo Soomaaliya arrimahan oo kale masiirigu markay taagan yihiin horta caadifad iyo haddii aan laba leeyahay durbaano laguma qiimeeyo anu waxaan qabaa xaajaduna markay taagan tahay ayaa wax laga goostaa anugu waxaan qabaa maanta waxaan xasuustaa 94kii cigaal markuu safarkiisii talyaaniga ka bilaabay ee ilaa New York tegey maraykanku wuxuu u soo jeediyey inay boorka ka tumaan maadaama aanay koonfuri waxba ka jirin ay ka faa'iidaystaan oo haddii ay khasaare ku dhacay dhibaato ku dhacay somaliland say tacwiidna u hesho soomaaliya u badbaadiso golihii ammaankana ay fadhiistaan dowladnimadina boor ka tumaan calankana dhulka ka qaadaan madaxweyne maxamed ibraahim cigaal been umuu sheegin dowladda maraykanka anu maxamed ibraahim cigaal si fiican baan ula sheekaystay saaxiibna waanu hayn wuxuu ii sheegay inuu ku yidhi way adag tahay nimankii soo halgamay iyo dadkaydii oo xanuunkii hore ku yaalla inaan wax ka dhaadhiciyo laakiin fikirkaas waa fikir saxa waan iib geynayaa buu yidhi hala isugo waa tahay fikirku muxuu ahaa fikir dhex u ahaa miyaa sugada fikirku wuxuu ahaa markaa inaynu inagu dowladdii Soomaaliyeed sheegano oo calankii Soomaaliya oo kursigii fadhiisano oo madaxweyne noqdo oo caasimadu Hargeysa noqoto taana waxaan qabaa haddaynu maalintaa jaaniska qaadan lahayn aan madaxweynaha lagu shimbira waaqalayn inay koonfuriga odhan lahayd war waxaana inoo kala jar oo haddii aan laba leeyahay ay odhan lahaayeen idina wixiina qaatana waxayna qaato Hargeysa uma soo ilaa Hargeysa u soo socon kari mayna anagoo caasimad lahayn marka horta jaaniska waynu luminay waxa kaloo ka sii daray oo aan xasuustaa madaxweyne maxamed ibraahim cigaal wuxuu yimi soo noqodka Jabuuti uu ka soo tegey wuxuu la kulmay Allah u naxariistay madaxweynihii geeriyooday xasan guuleed abdidoon oo nin khabiir ahaa oo way arag ahaa oo xidhiidh badan oo dheeri soo dhex mareen madaxweynaha waxaa la socday maxamed ibraahim cigaal fagare waxaa la socday cilmi kabaal waxaa la socday idni la yiraahdo oo haddii aan laba leeyahay la yaqaano marka oo nin aad u macruufa oo markaana ka tirsanaa ahaa hogaankii nabadgelyada Somaliland laakiin nin reer sane leh
boqor adoo soo koobaya boqor cismaan oo adoo soo koobaya aragti aad qabtaa ma jirtaa oo ah in dee labada muqadas aan la taagnaane meel dhexe la isugu yimaado? anigu waxaan qabaa fikirkayga horena waan u caddeeyey madaxweyne muuse biixi wuu fahmi karayaa curfiga dowladnimo wuu fahmi karayaa hadda waxaan qabaa inuu hadda international community-ga rabitaankeeda dowladahani waxba ina leeyihiin maraykanka ayaa ugu weyn dowladda ugu weyn ee wadda ee dabada ka wadda ka mid a arrinkan oo soomaalidana kale anugu waxaan qabaa kama soo horjeedin karo rabitaanka ummadda ta labaad waxaynu baraynaa haddaynu xataa goosashadu ina ka dhab tahay inaynu marro waddadii ay mareen istanbul iyo south sudan ay mareen ee ninkii cabqariga ahaa ee john garan uu dadkiisa ku hogaamiyey inkastoo aanu calfan isagu guushii ee ahayd in midnimo shuruud le la galo oo dib la isugu noqdo oo kala go-iyo inta laga yimaado midnimo shuruudla lagu noqdo oo dabadeedna ha dhowto UN-ka jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa afti ay markhaati ka tahay la qaado deedna sidaa sharcigaa bay ku geen waana tii haddii aan laba leeyahay lagu kala kaxayey anigu waxaan qabaa madaxweyne muuse biixi cabdi inaynan international community-gu aanay dhabarka inoo soo jeedin dowladaha inala socdeen maanta garowga ina siinaya aynan isku dhicin maanta somaliland waxa weeyaan waxaynu gar ku helaynaa ama aynu ku bixi karaa waddada dowladuhu ku kala baxaan meeshan waxaa ka dhacay meher baa ka dhacay marriage baa ka dhacay furin labada daraf ku heshiiyaan ayaa lagu kala bixi karaa caalamku ina leeyahayna furin labadiina darafa waa inaad kala baxdaan marka waxa weeyaan hadalkayga aad iga dhex goysay waxaan uga jeedayay xasan gulaab wuxuu ku yidhi markuu soo noqday cigaal inta aan kugu noqdo janis history wuxuu ku yidhi xasan gulaab wuxuu ku yidhi berigii aad go-ayseen berigii aad soomaali u tegayseen 1959 bishii october waxa aan joogay buu yidhi qaahira wafdi baan kuu soo diray in la yidhaahdo samood faarax oo xasan guulad walaashii qabay oo haddii aan laba leeyahay reer jabuuti ah iyo wafdi awalaan kuu soo diray waxaan idinku yidhi warnimayo caadifada iska daayo oo UN-ka fadhiisto oo calanka qaadka oo degdeg ha u tegin oo hadhow idinkoo soo kala noqon kara ka daaya waad iga diideen oo caadifad baad ku tagteen buu yidhi maantana caadifad baad ku go-aysaan taladaa maraykanku ku soo siiyey baan anigu aqbalayaa haddaan xasan guuleedahay safaaradda u horeysana waan kuu soo dirayaa haddii kale halkaad ka waraabistaan idinka xasan guuleed cigaal wuxuu yidhi allahu naxariisto fikirkaagaasi waa sax waanu yeelaynaa waanu qaadanayaa waa ku shaqo tegayaa dagaalkii qoridii haddii aan laba leeyahay jabhadii iyo shacabkii caadifadaysna cigaal kala hor yimota waa taalka inay dhigay maanta waxaan qabaa international community-ga waxa ay rabaan ma diidi karo madaxweyne ibraahim muuse biixi wuu og yahay xeelad iyo tab baa arrimaha qaarkood lagu hadlaysaa caadifada tandurbaanka lagu tumayo siidhiga halkan hargeysa lagaga garaacayo maahay arku siyaasad ballaaran buu baahan yahay degenaanshu u baahan yahay waxaan leeyahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle waa nin dhiran dhirin kara wanaagga soomaalida dhexdiisa waana nin lagu yaqaanay waana nin looga bartay waxaan qabaa inaynu madasha aynu fadhino rag wax ka soo goyn kara oo aan cay iyo afxumo iyo haddii aan laba leeyahay fashilkii ina kaga dhacay maanti dhaweyde xagga diblomaasiyadda ahaa ee ninba wuxuu doono ku hadlayay la dhowrto oo la qarsado waxaynu doonayno baa qabaan waa tahay guddiga farsamo ee somaliland ku matelaya wadahadalkan guddida la saaray ee somaliland ku matelaya dad baa leh dadkan deegaamada iyo qeybeeya habka beelaha somaliland ay ugu heshiiyeen nidaamkan somaliland ee dowladnimada looma dhamma adigu sidaad u aragtaa guddida ni horta dad badan baa caankaa ila soo hadlay aniga waad ogtiin oo madaxweyne muuse biixi hadda iskumaanu wanaagsanin laakiinse anigu waxaan aqaanaa shacbiga reer somaliland yaqaanaa marka madaxweynuhu arrin qaran ku jiro in lagu ixtiraamo taa dadkaa soo dhaweynayo o dhanna saaxiib lamay ahayn muusena may jeclayn laakiinse waxa weeyaan waynu ka qolada koonfureed markaan eego inagu wax kasta aan isu qabnay waynu ka wadanisannahay anigu waxaan qabaa 10 muuse biixi ardaagiisa 5 caruurtiisa hadduu haysto keliya way qadiyadeena wax faa'iida inuu ka keeni karaan waa wax aniga beeshaydiya waa wax aniga dadkaydiya waa wax somaliland oo dhan u dana anigu ma doonayo in la akriyo qabaa'ilka dadkan ergadan maraysa in la akriyo
iyo ashkhaasta waa tahay ugu dambeyn boqor cismaan wanaagay ka keenaan halkaas unbaan anigu ku qiimayn karaya. waa tahay ugu dambeyn boqor cismaan shirku haddii uu sidaa ku fashilmo oo ku burburo ma isleedahay madal middan oo kale ah oo dawlado waaweyn ay joogaan baa mar dambe labada dhinac ee Somaliland iyo Soomaaliya la isugu keeni doonaa oo dantooda lagaga hadlaya? horta wixii qaybahee maqan ee ilaahay xaggiisa ku maqan ilaahay unbaa og, laakiin curfiga dawladnimada marka sida lagu yaqaano ama dawladaha arrinka dabada ka riixaya iyo culayskay leedahay markaan eego arrinkaa xaggeena haddaynu arrinta ama aynu ka kacno ama arrin negative dhiibno waxaan ka baqayaa sidii jabhado hore ama dawlado hore oo gooniin doonayay ama haddii alabaleey dantooda u saciyayay khasaarihii kaga dhacay caalamku dhabarka u jeediyey inayna ku dhacdo waan ka cabsi qabaa. laakiin waxaan rajaynayaa madaxweynahan aan kula talinayaa الرائب لا يكذب على أهله. حنا وحاد مدرسة كسو عرفتي سيدي وحو سعدان وادوكتاي سيدي وحو سعدان وادوكتاي وحا دبدا عليسك كسارن وادوكتاي هاد كسيحان ويدي شعبيغا انا كياب رير سمدوجو انا waxaan qabaa masiirkii adaynu goonistaag doonayneen aynu ku bixilay hadaynu midnimad doonayneen aynan waqti u ridneen hadaynu wado u socono oo ay tahay ugu dhow aynu ku dooni karno goonistaaga maaha wadadan aynu hayno ee sodonka sano soo haynay baan qabaa arrinkaa wax qabaa in talo xukuumadda iyo siyaasiyiintu uga noqdaan ragayga dhaqankuna waanu ku ixtiraamaynaa wixii wanaagahay ummadda kaga shaqaynaya. kaasi wuxuu ahaa boqor cismaan aw maxamuud buur madow oo khadka taleefanka aan ku wareysanayay isagoo waqtigan ku sugan wadanka Imaaraadka Carabta.